السلام الله عليكم صاحبada qiimaha badan ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta mowduuceena maanta waxaan isku fiirinaynaa qaabka uu sameynaysa video masking qaabkana square iyo rectangle adigoo isticmaalayo CapCut aynu isla fiirino si aynu isku aragno ila keena CapCut-ka aan soo furano CapCut-ka ayaad soo furanaysaa marka soo furatid si aan ogsoonahay waxaad taabanaysaa new project marka taabatid muuqaalkaaga ayaa soo gashanaysaa muuqaalkaaga aad rabtid aad soo gashanaysaa anaga marka hadda hal muuqaal iska soo gashanayna muuqaalkaaga marka soo gashatid markuu halka ku marayo muuqaalkii ayaad calaamadeynaysaa qaybtaas ayaa socodsiinaysaa ilaa ay kaaga soo baxdo mask markay ku soo baxdo maskiga marka qaybahan ayuu leeyahay haddaad rabtid horizontal qaabkan waa loo muuqaalka ayaad hoos dhigaysaa horizontal haddaad rabtid mirror qaabkan dhexda ahaan circle qaabkan waaye marka hadda circle-ka ayaan ku tijaabinaynaa marka circle-ka doortid qaabkan ayuu kuu soo saarayaa meeshaas adjust ay ku qoranta ayaad kusii dhufanaysaa halkan ayaad ka controleysaa marka size-kiisa iyo sidaa u rabtid halkan ka wareejinaysaa haddaad rabtid inaad weynaysid hadda wejigan toos ma loo arkaayo waxaan rabnaa inaan weynayno si aad u weynaysid waxaad qabanaysaa falaarta saas u jiifto ayaad qabanaysaa dhankan ayaad u jiidaysaa ballacay uu u weynaatay haddaad rabtid joog inaad u weynaysid oo qaybta sare aad muujisid ayadana waxaad taabanaysaa falaartaas kale kor ayadana qaabkaas marka waasla mar kora u jiidaysaa marna geesa u jiidaysaa si ay isku mid u noqdaan haddaad rabtid fingerkaaga ayaad adeegsanaysaa meesha rabtid ayaad dhigaysaa marka hadda circle caadi la yaqaano ayaan ka dhigaynaa qaybtan hoos u jeedid falaartan hoos u jeedidna waxaa waaye hadda sharp waaye laakiin haddaad qabatid xoogaa khafiif ay noqonaysaa geesaha mugdi ka soo galayo haddaad rabtid qaabkan waad samayn karaysaa haddaad rabtidna qaabkan sharpiga ayaad samaynaysaa hadda marka circle ayaan samaysanay waa ku daynaynaa okay ayaa leedahay haddaad marka meeshaan size-ka hoosna waa kala socon karaysaa position-ka aad dhigaysid size-ka rotate haddaad rabtid inaad wareejisid iyo feather wixii qaybtaasi sare falaarahan aad ujeedid halkan ayadoo qoraal ah ku taalo ujeedado calaamadii hoos waaye tan featherka lagu sheegayo calaamadii hoos waaye haddaad saa u weynaysid waxaa khafiif ay noqonaysaa haddaad zero geysidna sharp ay noqonaysaa qaybta rotate-kana saas waaye waa wareejinaysaa qaybta kale size-kana cabirka waaye waa daawarti inaad weynaysid ama ayadaysid intaasna gacantaada ku samaysan karaysaa marka sidaas marka u samaysid okay aad leedahay hadda muuqaalkeeni qaabkaas ayuu noogu samaysan yahay marka waxaad rabtaa muuqaalkii markaasaa ka dhigtid gadaashiis inaad muuqaal kale soo dhigtid marka waxaa samaynaynaa muuqaalkan ayaa waxaa ka dhigaynaa overlay halka muuqaalka kalena basic ka dhigayno hadda marka muuqaalkan basic ka dhigayna kan overlay ka dhigayna saa overlay uga dhigtid waxaad muuqaalka calaamadeynaysaa qaybtaas hoos ayaa soo baxaysaa overlay ayaa taabanaysaa muuqaalkaagii hoos ayuu ku imaanayaa markuu hoos ku imaado muuqaalkii kale maadaama maska ku sameynay maska aad ka qaadaysaa maskiga markaad ka qaadaysid qaybtan ayaa taabanaysaa nan markaad ku dhufatid waxaa waaye sidaan ayuu kugu soo baxayaa marka muuqaalka waa calaamadeynaysaa meeshaad doontid waa yareynaysaa meeshaad doontid ayaad dhigaysaa kor hoos meeshaad doontid ayaad qaabkan u dhigaysaa haddana isla muuqaalkii aan sameynay ujeedado meeshaad doontid ayaad dhigaysaa markaa wax sharaxaysid ama waxyaabo aad rabtid inaad samaysid qaabkan ayaad u dhigaysaa haddii aad rabtid muuqaalkan inaad ka dhigtid rectangle isna sidii aad samaynaysaa waxaad imaanaysaa mask markaad imaatid waxaad dooranaysaa rectangle markaad dooratid hadda waxaa waaye rectangle caadi oo geesaha xitaa kii kee waaye oo dee geesiis xitaa si fiican rectangle geesiisa 4 gees ay yihiin marka sidan haddaad jeclaysatid waad ku dhaafi karaysaa waxaa kaloo jirta
inaad geesaha kasoo wareejisid waxaad taabanaysaa adjust meeshay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa marka round corners meeshay ku qoran tahay aad imaanaysaa geesaha yar inaad kasoo wareejisid aad rabtaa marka hadda 5 waaye geesahaasi waxaa waaye aad basaa u rabtid ayaad ka dhigaysaa markii eber aad ka dhigtid 4 gees waaye ujeedido marka waa jiidaysaa 10 xoogaa waa la soo wareejiyey xoogaa soo wareegatay 23 ka dhigna way soo wareegtay ilaa circle xitaa marka 100 ka dhigtid circle ayaa noqonaysaa marka gadaal ayaa u celinaysaa rectangle oo geesaha kasoo wareegsan oo shape qurux badan ayuu ku noqonayaa qaabkaasi asigana waa u sameyn kartaa marka shape-ka rabtida aad ka dhigan karaysaa hadda waxaan ku tusiyey circle iyo rectangle balse shape fara badan ayuu leeyahay waxaad ka dhigan kartaa love star rectangle waxyaabo badan ayaad ka dhigan karaysaa marka muuqaalkaagi qaabkaas ayaad ugu sameynaysaa shape-ka rabtid adigoo isticmaalayo CapCut intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago haddii aad halkaan nala soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu xiran aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa haddii aad nagu cusub tahayna fadlan nagu soo biir oo subscribe-ta hanaga iloobin waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iiday intaan muuqaal noocaan ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay nabad ahaada